isdiwaan gelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadin kale waxay damiinata حقيسة دستورية حقيسة دستورية dalkiisa muwaadin kale waxay u damiinata حقيسة دستورية هوي حقيسة دستورية iyadoo lagu jiro waqtigii diiwaan gelinta ayaa waxaanu saaka soo kormeernay iyadoo uu hogaaminaya agaasimaha guud wasaaradda waxbarashadu balse ay u socoto si wasaaradda waxbarashadu aan uga qayb qaadano wacyigelinta in kaarka la qaato waxaanu halkan fariin uga dareynaa macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda gaadhay xilliga diiwaan gelinta inay isdiiwaan geliyaan dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay kulay degmada Hargeysa oo ay maanta ka socoto waxa hadhay sida ay nagu wargeliyeen howlwadanada diiwaangelintu bariyo kaliyata waxaan aad iyo aad ugu wacyigelinaynaa in laga faa'iideysto sidii horeba loo sheegay doorashadu ma aha maalinta ay doorashadu dhacayso laakiin doorashadu waa maalinta aad kaarka qaadato waayo wax qofka kaarka qaata unba ah qofka hadhow tolo codeynaya waxa farxada markaa in iskuulkii dhowrkii iskuulaan soo booqanay markaa diiwaangelintu ay runtii si wanaagsan uga socotay diiwaangelintu waa hawl qaran hawl culus weeyaan waa hawl runtii qayb weyn ka ah markaa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu wasaaradaha anagu markii hawshan soo gashay aanu kaga qayb qaadanay inaanu diyaarino goobihii ay naga soo codsadeen commissionku oo ah dugsiyada dalka oo dhan marba degmada ka dhacaysa in la fududeeyo in la fasaxo ardayda iyo dugsiyada si ay uga qayb qaataan fariintan mar labaad u dirayna bulshada waxa weeyaan degmooyinka ka socoto dhan ee degmada Berbera iyo degmada Sheekh degmada Hargeysa iyo degmooyinka ka bilaabmi doonto iyo kuwa ku socotaba waxa weeyaan fursad aad haysatay way qofka muwaadinka inuu ka qayb qaato inuu isdiiwaan geliyo si uu noqdo cod bixiye fursadaas waxay ku saamaxaysaa hadhow inaad doorato madaxdaada iyo hogaamiyaashaada degmada iyo xildhibaanadaada waa fursad aan dib ku soo mari doonin ciddii markaan hore isu diiwaan gelin waa fursad maanta haystaan oo commissionku inoo diyaariyey waxaa jira markaa dad gaadhay da'dii 15 sano oo u siinayay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland isdiiwaan geliyaan oon markii hore aan da'da gaadhin maanta fursadii haysanaa qof kasta markaa da'da gaadhay iyo qofkii aan hore u qaadan labadaba markaa inuu maanta isdiiwaan geliyo taas waxaynu suurto gelinaysaa tirada degmooyinka iyo gobolada diiwaangelintu waxay qayb ka qaadanaysaa tirada guud ee diiwaangelinta qaranka laga sameyn doona qayb ka tahay marka degmooyinka iyo goobaha la iska diiwaangelinayo dhammaan dadka waxaan ku wacyigelinaynaa marka inay culays badan saaraan ciidamada amniga sugaya waan u mahadnaqaynaa si wanaagsan amniga u sugayaan bulshada iyo madax dhaqameedka dadka wacyigelinayna waan ku dhiirigelinaynaa marka si wanaagsan dadka wacyigelinayaan sidoo kale xisbiyada qaranka oo iyaguna saddex xisbiba si weyn uga qayb qaatay iyagana waan dhiirigelinaynaa xukuumadduna runtii waxay fududeysay dhammaan howlihii oo dhan iyo guddiga commissionku intaasoo iskaashaday markaa qarannimo iyo dowladnimo iyo horumar bay muujinaysaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waa inoo iyo diiwaangelin iyo doorasho xor iyo xalaal inoo dhacdo insha Allah isdiiwaangelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadin kale waxay damiinata حقيسة دستورية حقيسة دستورية dalkiisa muwaadin kale waxay u damiinata حقيسة دستورية هوي حقيسة دستورية